musharaxa xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya Qaasim Cabdikariin Xaaji Cilmi oo hadda ku sugan cariga Mareykanka ayaa deeq lacaga oo cadadkeedu yahay 7,600 oo u soo wakiishay wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga Galmudug Cabdifataax Cagayare iyo xildhibaan Cabdiqadar Axmed Ciise oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug waxa uu ku wareejiyay maamulada iskuulada hoose dhexe iyo sare ee Saalixudiin Howlwadaag iyo Al-Aamin ee ku yaala degmooyinka Caabudwaaq iyo Dhabbad musharaxan oo bishii hore booqday iskuuladan ayaa maamulkoodu ay u soo bandhigeen baahiyaha ay jecel yihiin inuu wax kala qabto isagoona dhammaanba ballanqaadkii uu u sameeyey maanta fuliyey waxaana munaasabad kooban oo deeqdan lacagta ah loogu wareejinayay maamulka iskuuladan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug ganacsato dhalinyaro iyo marti sharaf kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdifataax Cagayare ayaa sharaxaad ka bixiyay deeqdan lacageed ee lagu wareejiyay maamulayaasha iskuuladan kulankeenan maanteeto waxaan iskugu nimid in aan iskuulaad uu booqday musharax Qaasim intii uu safarka ku marayay Dhabbad iyo deegaanada Caabudwaaq iyo deegaanada hoos yimaada iskuulaadkii uu booqday baahiyadii ay markaas la wadaageen oo uu ka ballan qaaday inuu ka taageerayo in iskoolaadkii aan ku wareejino dugsiga sare ee Dhabbadeed waxa laga taageerayaa oo uu ballanqaadkii markaas uu ka ballan qaaday ahayd 15 kombiyuutar inuu u gado iskuulkii qiimihii oo sheegteen guddiga iskuulkuna baarna inaan ku wareejino annaguna hadii alla idmo sidoo kaleeto dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Howlwadaag oo uu booqday ayaguna baahiyihii marka ay sheegteen oo dayactiro iyo ay kamid ahayd agab iyo waxyaabo noocaas ay kamid ahayd baarna ayagana inaan ku wareejino lacagtii uu ka ballan qaaday inaan ku wareejino waxa kaleeto oo aan rabnaa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Saalixudiin ayadana sidoo kale ballanqaadkii uu ka ballan qaaday oo ahayd dugsiga fasal in lagu daro ayadana inaan ku wareejino baan rabnaa maamulayaasha saddexda iskuul ee Saalixudiin Howlwadaag iyo Al-Aamin ayaa sheegay in Qaasim uu yahay musharaxii ugu horeeyay ballanqaadkiisa fuliya iyagoona xusay inuu yahay shakhsi waxtarkiisa ay arkeen una rajeynayaan inuu noqdo xildhibaanka matalaya ku hadlaya afka iskuulka iyo maamulka degmada Dhabbadeed ahna iskuulka sare ee degmada Dhabbadeed kormeerkii uu noogu yimid ama qiimeyntii deegaamada uu ku sameeyay musharax xildhibaan Qaasim Cabdikariin Xaaji baahidii aan u gudbino ahayd in aan u baahanahay kombiyuutarro uu nooga soo jawaabay aad baan ugu mahadcelinaynaa anaga maanaan ka codsan laakiin asaga indhihiisa ku arkay oo noo ballan qaaday inuu wax nagala qabanayo meeshina uu nooga sheegay lacag $2,000 inuu nalagu wareejiyay qofkii ugu horeeyna taageero u noqdo anagu baahiyahay laba ahayd darbiga iskoolka gaaban oo iska soo daadanayaan ilmihii iyo mootahay iyo dhismo ah marka isaga wuxuu yiri baahida idinku daran maxay noqonaysaa anagoo darbigiina rabna baan idhi bal dhismahaas lacagtu waxa weeye lacag $3,300 ganacsato odayaal iyo dhalinyaro ayaa iyaguna tilmaamay in musharaxa xildhibaan Qaasim Cabdikariin uu yahay shakhsi ka soo baxay ballankii uu ka qaaday maamulka iyo ardayda iskuulada uu booqday waxaana ay xuseen inay ku garab istaagi doonaan sidii uu u noqon lahaa xildhibaanka matalaya ugu dambeyntii ayaa goobta waxaa ka hadlay xildhibaan Cabdiqadar Axmed Ciise oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug madashan waxay nagu kulmisay waa inaan goobjoog ka noqono barnaamij khayriya oo uu sameeyay walaalkeen musharax Qaasim Cabdikariin Xaaji oo runtii ah shakhsi si dardar leh howlaha horumarinta deegaanka uga qayb qaatay intii reedu uu joogay ayaan Cabdullaahi Jaamac Xonkiibal TV Caabudwaaq ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobillo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtal sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ee e-dahab
mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa in eheladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333